بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن إذا لهم بأخيارته هوذا نقل سعوتاي حلقني وإستوريا دحه التلفزيون كقرنك مقالة هرقيسة كلنتي ونكسن إذا لهم به ملك سويد شوكتان يحل كستا وأيدين تهاي برنامج كان برنامج كمدي هاي برنامج هذا آلابه أتكلم هاتان تلفزيون كقرنك جمهورية الصوماليلان وبرنامج هذا سوغانتا dhaqanka balse waxa uu kaga duwan yahay barnaamijyadii hore aad daawan jirteen waa barnaamij aanu si gaar ah u dul istaagayno una xusi doono taariikhdii iyo waliba waayihii faneed ee uu lahaa ifka kaga tagay Allahu naxariistee marxuum Ismaaciil Cabdi Ibraahim Ismaaciil Cabdi Guure oo inta badan loo ogaa loona yaqaanay kuna magac dheeraa basbaas يا إيفا وش فرديك كليه وارد فردي شاكرتي ايش اللي قاعد يدي اروح هو معي انا عروس هدايا عروس هدايا وارك انا استايا الا فروغ اي حيد كل ذا هذا ما تدونا اروح هو معي ويو هذا بس الله صار يلا marxuumka waxa dhawaan 4 bisha March ee 2018 uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa isla 5 bisha ayaana magaalada Hargeysa aas heer qaran ah loogu sameeyay marxuumka oo taariikh fara badan oo waliba xagga dhaqanka iyo suugaanta ah ku lahaa suugaanta ayaan jeclahay in aanu barnaamijkan aanu ku dul istaagno isla markaana aanu idinku la wadaagno oo aanu daawadayaasheeda kula wadaagno taariikhdii uu ifka kaga tagay Allahu naxariisto marxuum Ismaaciil Cabdi Guure oo basbaas ku magac dheeraa waxaa istuuriyaha marti igu ah oo ila jooga Ibraahim Cali Axmed Ibraahim Cali Cuule Ibraahim waa aqoonyahan ku xeel dheer xagga dhaqanka suugaanta iyo waliba ururintooda qora isla markaana xeel dheer oo fog u leh dhaqanka iyo suugaanta iyo taariikhda soo jireen ee fanka Soomaaliyeed Ibraahim aad baan uga mahadcelinayaa waqtiga wanaagsan ee uu soo siiyay istuuriyaha qaranka xaruntiisa dhexe magaalada Hargeysa uu nagu soo booqday martina noogu yahay Ibraahim wad maasan tahay ku soo dhawow mar kale iyo istuuriyihii qaranka taariikhda Ismaaciil Basbaas aynu jecelaystay inaynu bal hadda aad nala wadaagto oo aynu xogay falanqeyn aad naga siiso kelmadda tacsida anigoo ku siinaya waxaan jeclahay waan hubaa kulay xeel dheer baad ama aqoon durugsan baad u lahayd marxuumka wax fara badan adaaba ka soo gaaray wax fara badan ama taariikh fara badanna kulay waxyaalihii aad uruurisay iyo kaydkaagii bay kamid yihiin ugu horeyn marxuum Ismaaciil Cabdi Guure oo basbaas loo yaqaanay shakhsi nooce ah buu ahaa iyo kelmadda tacsida aad baad mahadsantahay Xamse adiga iyo istuuriyaha iyo maxaan ku raadayay TV-guba aad iyo aad baad mahadsantihiin marka ugu horeysa waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu marxuumka u naxariisto oo jannooyinkiisa ku macsuumo ehelkiisana samiriyo wan ka siiyo bulshada afka soo ku hadashay gaar ahaan bahda fanka iyo dhaqanka oo ku jiray muddo dheer waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariista janno ka waraabiyo haddaan u soo noqdo basbaas Allah naxariisto basbaas wuxuu fanka ku jiraa anigoon jirin waayo waxa nin weyn waalid igu beegan laakiin waxaan ku raadayay taariikhdiisa markaan dib u milicsano inkastoo jiraan dad iga aqoon badan ama ay soo wada shaqeeyeen ama ay soo wada noolaayeen haddana sidaad sheegtay xogta aan ka ururiyay isaga ee ku saabsan sidaan xogihii kala idin la wadaagay ku saabsanaa dadkii isaga la midka ama kawasi waa inay dhintay buu ka mid yahay marka haddaan dib u yara milicsado taariikhdiisa Allah naxariisto sidaan ka xogeystay familigiisa Ismaaciil Cabdi Allah naxariisto wuxuu ku dhashay magaalada Oodweyne sanadkii 1936 inkastoo xilligaa uu dhashay aanay jirin maxaan ku raadayay dadka inta badan ay wali meeshaasna baadiyahay kay taariikheed iyo dir record xagga dhakhtar uu qofka ku dhashay aanay jirin sida familiga 36 35 34 laakiin waxay u badiyeen 36 in xilliga uu dhashay ay ahayd markaa Ismaaciil Allah naxariisto xilligaas uu dhashay wuxuu nimigi ka soo jeeda
oo dhaqanka ma garanaysa ku taxalluqa halkaasuu ku barbaaray fursad ma helin waxbarasho nololeed laakiin isagoo korayay magaalada soo galay Allah u naxariisto magaalada intuu joogana wuxuu ka bilaabay shaqooyin u gaara si uu nolol maalmeedkiisa u soo lafgareeyo waxa la sheegay hodheelada inuu ka soo shaqeeyay markii dambana wuxuu tagay cadan oo xilliga la tagay jiro loo fikiray 1956 halkaas wuxuu joogay ilaa 1958 isagoo markaa halka ka shaqeeya ayaa wuxuu arkay dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka xilliga Ingiriiska ay kula dagaalamayeen oo waxa jiray dad ilbaxa oo inaga inaga joogay cadan oo Cabdilaahi Qarshe kamid ahaa oo kamid ahaa maxaan ku raadayay Bilaayacasu kamid ahaa cali sugu loo tagi jiray oo ka soo noqon jiray iyo dad badan oo kale xiriir been la lahayn halka xagga ilbaxnimada oo saxaafada fanka ay halka taalay marka wuxuu ka qayb qaatay markii ugu horreysay arko ama uu jeclaystay fanka inuu ku soo biira xilligaas ay ahayd kadibna wuxuu soo wareegay halkan oo lafteeda uu dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka u nool yahay oo dadka shamcawashida ay joogaan oo ay dadka fanaaniinta abaanadu dareenkooda ku cabiraan gumaysi nacaybka iyo gobonimo doonka qoladaas oo kamid noqday sida taariikhda lagu hayo 1958 baa markii ugu horeysay ee uu wax matalo xilligaas oo ruwaayad kamid ah kuwa gobonimo doonka oo dad badan ay ka qayb galeen xilliga dadka joogay isugu tageen oo xilliga Cabdilaahi Qarshe joogo Bilaayacasu baa joogo cali sugu la joogo Xuseen Faarax baa joogo rag ruwaayadaas uu ka qayb qaatay ruwaayada magaceedii waan raadiyay laakiin way suurtagal wada dadka waqtiga ayna way xasuusan way wax ku xaqiijiyay madin marxuumku intii uu cadan joogay xagga saaxada fanka ama suugaantiisii yuu wax ka soo bilaabay mise markii uu halkan yimid uu caadi halkan wax uga bilaabay in kamuu bilaabin in wax ma jirto record laga hayo ku saabsan cadan intuu joogay inuu tiri laakiin 1960 habeenkii gobonimada hees buu sameeyay sidoo isagu ii sheegay Layla Kulmiye heestaas isaga sameeyay sidoo ii sheegay intii dambana wuxuu ka soo qayb qaatay oo isagu abwaalnimadiisu ay xoogiisu ahayd qaybta jilaanimada xagga masraxiyadaha iyo jilidu waaga wanu imanayna hadaba ruwaayadihii iyo qaabkii uga qayb qaadan jirayba ama wax uu matali jiray haddii aad xogay soo hadal qaaday inuu hees sameeyay waliba xagga wadaniyada waliba xilligii gobonimada oo 1960kii oo ahayd xilli runtii yani taariikh aad u mug weyn markay timaado waxa la yiraahdo heesiisa hadaynu si amba qaadno ma jiraan heesa kale oo lagu xasuusan karo Ismaaciil Basbaas waxa jirta heesta caanka radio Hargeysa warku markuu baxayo ay ku soo gali jirtay inkastoo imka la mamnuucay tirada Allah waa kugu mahada waa kugu mahada heesta ereyada sagaal heestaas ereyada waa hagaag daawadayaal bal hadda heesta laftigeeda ayaan jeclahay sideed weynuhu ay bal haduu inuu yara xasuusino bal hadda music baan ayaan jeclahay bal inaan hadda dadweynaha la yara wadaago وهاجك إن إبراهيم أدبض ما سنتهاي هسه ميسيجا ده وحلا الله نحرست على الفيروس نين رونج إن أيالا ميسيجا وين بقى جيسوها وهاجك هسه لفتي إذا أنا مرحوم كاس مرحوم كرياضة لها أي رياضة سنية موسيقى أنا على الفيروس وحق راعية ولا ليها رجيسها كوحدي ولا لها رجيسة رشيد بوليو راهوليو المنهاري محمد سعيد بقراعي أياتهم ميسيجا وهاجك إن مركا طبعا استورياشي دريريو هرجيسة لفتي جودا وأنا مركا لقطه ويبان يعني أن أفهمي أن ولا له هرجيسة سو هذا القاطع أن ولا له هرجيسة أنا طبعا وأساسيات شيء توش كو وذي فنك الصوماليات أن أو تدكي وحصو حلقو كسو أبقال ما أما كسو بلا ما يوي أي نقطة يعني أن ولا له هرجيسة مركب مرحومك ولا له هرجيسة قيب مكاها absolutely
sidaan kuu sheegay maadaama de 60kiiba uu ka mid noqday dadkii fanka kaalinta lixaad kale ka soo qaatay walaalaha Hargeysa ka mid noqday riwaayado fara badan oo ka soo qayb qaatay koob iyo 60kii wuxuu ka qayb qaatay riwaayad uu saxardiid lahaa jabiye oo maxaan ku raday burca isku barteen saxardiisada sheegay markuu arkay ninkan nin jiraay inuu yahay riwaayada maxaan ku raday ku soo qaray markaa doorku ku lahaana kaalinta odanimada mar walba matal jira wacaanka ku ahaa ayay ahayd riwaayada waxaan jiray calafka kuma seego cisha baad la kulmi calafka kuma seego cisha baad la kulmi koob iyo 60kii oo riwaayada sameeyo maaragtay Ismaaciil wax ka noqday Alla naxariisto jilaaweyn oo bulshada ay aragtay oo muuqday ayuu noqday waagaag Ibrahim aad baad mahadsan tahay anu nimaadna hadaba marxuumku iyo saaxadii uu caanka ku ahaa ama lagu bartay يعني دفر بدن لو كسو قاعدين ان رواية ظفر أيو آد وقيب قاتها ان رواية ذها وكقيب قاتها انت هيرك شيء اللي يقانو أما العركي حد حسوسته إن انت أنا سؤال شاك هذا شوي من حمص وحن شعر أنا دبي يرهم الأصوات تاريخ ظهر ولها وي ان سيدو سحر دي شاقي الله نحرسته واحد شرر رواية ظفر بدن وسميه كقيب قاتي وحكم هذا الرواية وبدن رواية سحرتي وحكم هذا الرواية اللي ما دام دقائق والحلمية كوب الحكلبي لا دور اللي كيس على رواية فرمان صار رواية لو بوران هذه ما قدنيو رواية كلو شري دنيا يحرقه سجد عرقات وقيب قاتين انت بدلنا اسماء من حال عبد الكريم مقول بمثل شري الله حمده دنا وحكى قيب قاتين مر لحن كبير مسقف كاكاديميكا الله نحرسي احمد محمد قول شمبر روايتها وكقيب قاتي لكن ويحسوا ما يسحر دي وحوي شيء رواية بدل ولا كقيب قاتين لكن شو ذو كل شري ويحسوا واي مركا هرت حلقة رواية فربضن buu ka soo qayb qaatay walaalaha Hargeysana sida aad sheegtay waxa okay waa hagaagida nasiib daro riwaayadaha xilliga recording baan ama record ama wax duubisaan laga hayn aynu nimaadna hadaba riwaayadihii uu ka qayb qaatay riwaayadihii caan baxay la soo gaaray ama dad far badan garanaya maxaa kamid ah markii sida isagoo walaalaha Hargeysa ah oo fanaaniinta kale ay walaalaha Hargeysa yihiin ba maxaan ku raadayay 1970kii waxa la mideeyay walaalaha Hargeysa iyo kooxdii ciidamada waxooga dalka oo 4-6 la asaasay muqdisho waxa ka jira radio muqdisho qolo leeyahay iyo ciidanka xooga dalka oo radio iyaguna koonfurta ah waxaas kacanka markuu dhashay isaga mideeyay suugayay deedna waa bari baa loo bixiyay markaa Ismaaciil kuwaas oo hadana ka mid noqday isaga iyo dadkan faraha badan ee aragnaaba markaa Ismaaciil riwaayado fara badan ayuu Allah naxariisto matalo intooda badan aan daawaday إسماعيل عبد الله نحرستي روايتي دبش على الكرواء ومتري وحسن حاج عبد الله بالها وروايتي يقول الرئيسي وأنا روايتها حصوص تشلاني مدود أنا ضدك مسكح ضدك بحين دعوة أمر دقيستي روايتي شيني تعايل ومتري حسن حاج عبد الله بالها روايتي بدرسيق ويكوكا حسن حاج عبد الله أيضا ومتري روايتي قلبي دول الحرية ورثاك حسين ومتري حسن حاج عبد الله روايدي قد مسح حسن حاج عبد الله صو صاري لو شيء مصيبه ديده لو معلنا تانا او متل وان قرنيا انت ابا وانت روايده حسن حاج عبد الله waxaanu matelon san umarnay wali ma hobe riwaayada loo rixay dumisti aqalka arooskina kayga an doorka hada uu riwaayadahan ka qaadanay maxay wuxuu mateli jiray Ismaaciil Allah xariistay nin odaya oo aabaha reerka ah waxaanu maxaan ku raadayay markuu masraxa soo istaagayo wuxuu soo xiran jiray odayga reerku ama odayaasha dhaqankeenu waxa maryaha xidha maryaha ugu wanaagsan oo wuxuu soo xiran jiray gooshaala buu soo hogan jiray waliba saas u hogan jiray oo isku weedaarin jiray gabadha garab ka lidi jiray koofiyadna wuxuu xiran jiray qurux badan macaawis qurux badan oo soo xiran jiray kaba buura tusbixiisa yar uu sheegay iska soo qaadan jiray marka waa oday marka qurux badan oo oday baa marka isagu roolka ugu weyn ee uu fanka ku lahaa ee qof Soomaaliyeed oo ku gaari kara oo wax matala aanu jirin waxa uu kaalinta odaynimada oo aad ugu fiican waxa inta badan hadaba marka masraxa la isla taagan yahay dadku istilid yaqaanaan ama dadka qaar ba isla jaanta isla heli garanaya odaygu waa inuu helaadee hadana marwadii guriga ama hooyadii aad jeer yaa inta badan marka halka kaanta ay wada qaadan jireen inta badan huriyo Allah naxariisto maxamed cumar huriyo waan weydiiyay isaga oo subax baan ku aniga dacariyo anaga socona Cumar Xasan Rooraye Aamin Cabdullaahi baan ku riyaad ugu jeclayd
يعني قف كوا وقوم من نام وقوم من سنة بنقولي inuu wax kula jiro إنه أحكي لك وصل حلي ده موقف كقيا وبنا بشلو هريو وحلو مثل كذا guriga markaa isna hadii jeer kaanta dumarka aad رواية هذا صار أنت بدل سيا كلا سوق قاتي كان الزمر أنا كل شيء جيو يقار بدل لو كلام وأنا شيء جدون waxaan jeclahay inaan in yar ku wada nasano aan dadweynaha in yar daawsiino muuqaal ka turjumaya oday islaantiisa raali gelinaya ama bimacnaa odayga islaantiisa u heesaya dabcan muuqaalkaasi waa huriyo waxay oranaysaa malaha sidii hinaas waxba yara jira marka bal dabcan kaanta odaygu hadaba uu reerkiisa u kala maslaxo ayaynu bal hadda markan in yar eegi doonaa soo wadaada haweenka wehelkooda ah ee wadanka aanu ka maarmin weligay ma ahayn oo waxa la iman jiraa hada maanta ku diidaysa ya adigaan waxooga yidhi sheekadaad waa yatiqiinay waa la dhaafay haymoodin qofku halane wadanka haymoodin qofku halane wax walba waan ogahay wadaadaanu haweenka wadaadaanu ninkeedu welcome kaalay xabiib waxaanay kulahay gurteeda looga wareego kolkolbaad sakiis iska waal warbaha u tubataay waan jeclahay ama maad wakaalada Reuters iyo wariyaa soo u jeegtay oo warbaad ku baqaysay wariyay badow guurso ilaa waaba hawaarayana waa tagata waa ma tayd ma taqaanaa dhigtidu war la yaab ka balaaga namiya weliga abidka ciidan aarif waabi wasaarakaagu amaan baad leedahay adiga la wareersho la cadeeyay wadnaaya amaan nooga waxsi nooga waxsiya ku amaana ya amaan hadi amaan weeyda yaa ro qalmi haye سوايا وقوا ماريا هذا كم يا ما تسول عايز هذا ما هذه وحاتون بك وشيء يا الله أنا وقوا ماريا واي هذا أمان وحكوا حقوق بني سو هو شو أمان كحرت هاي واتاي وين دبان قابية وحاطرت وان أنا أما تكبر سوير هواك أدا هو هذا قارو سبا نيجي واتاي وحاني يل كده إسلام باتري كجو وحاني لي حبري روس أنا مهنيته أنا يو عنته لبدا ويل يسكيو يا وجهي كذا حرك الله إله وعطاها عريف باطل هو تاجي كوبيا تواني باكوب سبيه وليني كاونا سنين بها بانسار صدق يا توبان مريا وين ناقت هيا ما ادري وين ما ويه واحد يريته امانتا واحد ورقه ولا فري دورا اسيا شيء اقل كما كان سوق شوارع هذا امانتا marka si baxay shawaair hada amanta shuruud waxa adna yaay aniga انه كسو نقولنا بلهدين muuqaalkaasi dabcan waa wax weeyaan waa oday reerkiisii de maslaxay marka waa qaabka ay de abayaashu ama odayaashu ay hadii jireeraha la dhaqmi jireen markaynu kan imaadno huriyo Allah naxariisto hadii sheegtay inuu qofka ugu mudan ee ugu jeclaa uu ahaa hadii jirin uu wax matalo xiliyada ma jireen dad kale oo kaalinta huriyo kale buuxin jiray oo مثلا aan huriyo ahayn oo dumarnimo wax kula matalay way jiraan waxa jiray Allah naxariisto Maxamed Soofe kanaaco أبوان هاو إسنا كلا ها ولما دمر كنا مثلي شري ولما إسلام مثلي شري أسبرو بشري مركز هرجيس لقى هذا لبضا نبغونا لكن مركز مقدش لقى هذا وحشرنا لا ظاهر عاجل وحاشلاوين وسيده ريوكرا آدي كلا واحد دان كل حسوسيين كاسير وايد رجلي هبله هنا قرصن دانتان جبوتي مركز لقوا ديواني كبشرة أوكي سنة مثلية ولا شيء نحاول عتبر كنا صوها يا حلال بالله نكاس تسكيلو وحوي نكاس نتشلاوين بوها مركز ويشلين دد فربضن لكن نسوي أنت بدن وشقة وحوي لها تشجع وريتشبوتي بوها تشلاوين بوها لكن ريتشبوتي بوف أنا تشجع ولا أبوان بوها كتير واحد لكن أنا إن يربلا إنه كيرب إحنا وطن رجاس حاكو كلفي إني أنتوا نمن سوي استعجان مسرح أي هجوكتي أما مريه دمر كوس ولا بستان الدمر بانشرين حلية ظاهرة حسبوها والله ولا مركي إنه فن كانوا بالله ما كنتي بالشدة أبي قارتمي والوعي علماء وحواركين خلط
markaa way la dagaalameen dumarku markaa hore uguma dhiiran inay fanka galaan marka inaga riwaayadii goor saa Soomaali ku hadasha Cantar iyo Cibraan oo jira waxa sameeyay Allah naxariisto Xuseen oo Faarax markii actor-ka waa Maxamed Axmed Baha qofka kaalinta dumarka oo sanadii dumar meen Umar Dhulo dumar iska dhigayba marka Umar Dhulo muu soo baxayno muu dadka hor imanayno muu oranayno yani dumar iska mudhigin laakiin codka dumarka inta Soomaaliya dibadiisa galay xilliga isaga laftiisa riwaayada ugu horeysay waxa kaaliso waxa qofka dumar waa inuu yahay shaadi oo cid wax la mid soo labaad in loo jiray Xasan Gelin oo reerkiisa oo ahaan ugu horeeyay daf qaraaca waxa loo jiray Xasan Ali Warsame Xasan Gelin baa loo jiray Xasan Jawaan Cabdullaahi Qarsheebay dadkii fankaasay waa markii dambe Maxamed Yuusuf baa soo baxay oo inaan sagaal ka tukumay markii dambe Huriya soo baxay marka dadkaas laba arrimood baa ugu wacnaan arrintaas sameeyaan waa koowaad kaalinta dumarka inay iska dhigaan oo jirin inay buuxiyaan dumarkii kaalintii dumarka iyaguna hibadaas Ilaahay ku abuuray marka hibadooda inay soo bandhigaan dibadda keenaan wax ku abuuran baad si kale markaan u dhigaan u saan qabo dad wadaniin baa inuu maadaama dadka fanaaniinta abaaninta ka hadlaan dareenka dadweynaha dadku waxa ay doonayaan maadaama ay ka hadlaan dad u bareeray oo geesinimada la yimid ay aqbalaan inay muujiyaan oo jiraan oo naftooda u horay ayaa waana waxana jirtaa in ay dhacday hablo fara badan xitaa magacyada laga bedelay khasabay magool ma hayn maandeeq ma hayn baxsan ma hayn way lagu soo metelay way aanu ku soo soconaa hadaba riwaayadihii marxuumku uu metelay dawadayaal wali anagoo bartanka kaga jirna barnaamij aanu si kooban ugu milicsanayno taariikh nololeedka iyo taariikh faneedkii abwaan Ismaaciil Cabdi Goore oo basbaas ku magac dheeraa Allah u naxariisto magaalada Hargeysa ku geeriyooday si heer qaranana loogu aasay Ibraahim Cali Cuule ayaana martii ugu ah barnaamijkan oo taariikh far badan uu ka hayo in la wadaagaya riwaayadaha qaar marxuumku malaha actor baa uu ka haban oran kara ama qofka riwaayadu ku socoto aha hadii aanan khaldanayn Abustale maxay ahay Abustale Allah naxariisto Ismaan Aadan Xuseen baa fikradda la curiyay waxa riwaayada ka qayb galeen abwaano waaweyn oo jirayaala waxa ka qayb galay Huriyo waxa ka qayb galay Dacar waxa ka qayb galay Macaad Migana ka qayb galay waxa ka qayb maxaan ku radaa basbaas laftiisa jiraaweyna Ismaan Aadan baa ku jiray abwaano waaweyn oo jiraayo aad u qiimo badan baa ka qayb galay riwaayada muhiimadeedu waxay arrin mujtamaca xoog ugu jirta ayay ka hadlayeen oo ah xagga maxaan ku radaa dadku waxay ka aaminsanayeen culimada qaarkood oo bulshada xoog ku hay si ay bulshada u tusaan ama ay waftiimiyaan inaan saasi saxdahayn marka iska duul culimo khuraafaad soo baxay bulshada xoog marka u dhax galayo awood dheeraad ah dadkina ka baahidoodii ka faa'iideystay oo khuraafaad fara badan ku aqriyo marka si aad iyo aad u fiican bay dadkii u tuseen inta badan waxay ka hadlayaan hore ku sheegay dareenka dadweynuhu wuxuu yahay marka riwaayadaha Soomaalida ugu caansan buu doorka uu ku lahaa jiraanimadiisna waad aragtay kaaruun buu ka qaatay waxa ku tusi karta kartida iyo awoodda uu u lahaa jiraanimadu heerka ay gaarsiisan tahay isaga ku jirtay gudihiisa riwaayadaas ku tusi karta aan ka arki karaa waxa qablada aanu dib u yar milicsino riwaayada iyo heerarka doorkii uu ku lahaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة يا هذا مالنا كان جوا أولي خلاص خلاص أولياء ورت الشكي كم يجري من هدور رامها علي وأولياء الرسمي حقيقة وهي أطيع شيء أقوله horta khayrkan oo la keenay ay yarun bartankeena u sheedheer ku jifeeyay ishaaro ku socda waaw dhamaan awliyada oo dhan aniga afaqaane erayaan su'aale iga hayso afkaaga oo walwaaya awliyada ka xanaajinay wax su'aal ana su'aal هاي يسودو إلا يوين ضوء على سؤال يا اللي قبل فقاعد وطفكين عسول عسول وهو هاي ولا يقور هاي السياح أولي رسي وحلا دقال لما يعيش كدقي ترتيب ونور هذا لا يقول يركز قوير ولا يسقبوا الجوال هذه كيف تدين هاي فقالي هي وهي فقالي ورواية ولا قام رلاو كيجان كباري تقطع هي المغرب
الله فلان سنة ويديت واي حي حيقف ولا ما هو كبد ما تويديت ولا قبر لا سوري ما جاي وسوق وده حتى وقفوا يا هي قفاع هذا كسو بحي سماركس وولي وولي براوي السلام عليكم مقعد هذا بأسو أربع صواب بأسو سوري يا أولياء أنا فقاندين وريت هذه قوي ديري ثاني هاي أولياء وحوري بأسو روح ديري هذا هذه كورة وسوادي كده أولياء أردن أنا قاعد فقاندين إيجا حساب كأجمعنا تقوله كوري يا بأسو مو كله أولياء أكواد الشباب سودة ويديو نجد كنا بأسو هذا يا أجمعنا أردن أنا وحكان أرونا قال لي هالكاك صور نقضية طلعت عصوي قال صور نقضية واحد هي الشعب قال لي وهم كجرة يا داوري أنا أفكر الميساد أنا أول يستنى عنده ويا نجامس وهو واحد يقول إسك عامو با حكوين سو با سو أو بستان مياه وانا حتى كاسة وحدة والله وقعي بستالة برهانتين رماي ما هو حويه وفيه شقيق ترابي تراب وحويه بدأ صلى لها بحالها كل حلول با إنه صباحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معروف كرامته في البر والبحارية ومعروف كرامته في البر والبحارية سلام ساكن البرعة شيخ الصالح ما شاء الله بالبركة مركات بيته شيخ أكبر يا مريكا شيخ مسلالي أيها هالكاك حراقه وحود وعلينا كيه براوة كبرش سيدابو كرامة أو بستالي أنا جاي قبوبة أبوي سميت وحو سمي قصيدة عنك هاي حرف قاطو إلا ينا بستالة ورا كذا هذا حرطة وصوب النار إما كرامة بسلالة كوريكي ما شاء الله ورت شيخ كرامة ينكيسة ما وضع دم ينكره لكن هبين با إنا نوحوغا حرطة وقتها بالنوي شيخ كرامة ينكيسة وحبدا أيانوغا سوچوغي نعم شيخ يرانتيسي مقشان ودا راعي جري هذا شيخو مركي أو يرا حرورته وما كاين وكدغا واوينا ما شاء الله يعني وكدغا واوينا وانو قلب وانو كعقلي وين يحي ويا قلبي ما يحيدو حرورته با وما كاين وكدغا واوينا ويا شيخو وحو حرونا ولا هذي جري وانا يمن جري الا تعود مويا تعودوا وخاين الحيوان ويانو وحيوان كيقو قيامة بدنتاي وكالرقيت شيخو وحطوا لعونا ولا هذي جري ونا اللي شيكي جري وانا يمن جري الا تكهمو يعني تكوه حوية وعكاسة هذا توشكال كده ويان بالي وعرف اللقيت هذا شيخ كرامو ينكيسة عاوة انت هاي نوغو دنابا هنا انتم ايانو بلا بدونا ما شاء الله بالبركة بالبركة راكب ضبا بلا يذكى دبالي بلا يعدوي بجدوها بلا يوم قلب ضبا بلا يذكى دبالي بلا يعدوي بجدوها بلا يوم أنا كان مادنا إبراهيم الرواية لوحن جعلها المرحوم كو يسوق صاد شاكتي هذه شر
aabihii ama dee ninka odayo ereyo fara badan oo had iyo jeer dadku markay dee waayeelaan oo tusbaxa iyo ma garanaysaa weysada garabka sudhaan waxa weeyaan xitaa ducada iyo waxyaalo fara badan orodkayga tagnaya aabba waan soo naa taga aabbaha waay aniga aabbahay aabba kada kadaymayna naga tagde aabba kada naa iga tagay aragayga aabba kada ka jooji waan aabbahay haygada kadooda bravo waan haygada aabba kada dee waana kadayn waxaa ka daaya aabba kada door sug aniga wallaan mar hore iga dhimatay haygada aabba anaa xaaskayga ilaahay dartii ku asturaya bal iska daa iska joogta daa iska daa aniga hay qabsan isaga kaa ku asturo qabso waa iga soo doonaysa haynoo duceey haddaba waa daimkayga waa si waa yani waa dhoofkiina waan ka baaqday xaaskayga anaa iska kaxaysanaya waa ka noqon dhoofkiina waa ka noqon haynoo duceey haddaba loo duceey ilaahu awal baati aamiin ilaahu aakhir baati aamiin ilaahu axad baati aamiin adaan aabbiyo hooyiyo ubadtoona lahayn aamiin ilaahu ajal oo dhan iyo adduunkaanu ku noolay inta uu jiri doono adigaa garanaya aamiin ilaahu ma dhintaata ayaanta yoom alqiyaame amarkaad bixintooda adigaa garanaya aamiin ilaahu waadna abuurto ilaahu dad islaamaha ummaddii nabiga shahaadanaya oo shahaada qiraayo addoon aan hadug noo dambi dhaaf aamiin ilaahow waadna abuurto adigaana arsaaqe ubadkaad naga beertay adigu noo hagaaji aamiin oo iimaanka noo barakee aamiin ilaahow guurkii islaamkana ijiid aan ku jiidee iyo ifurbu u batee annagu waa abakabno cid un baad la inkaartay isukaya hagaaji inaysa la faro badana ha aamiin alfaatax aamiin aamiin laakiin idinaha kaale nabadgelyo waa isuukii duceeyey bal waxaan jeclahay sida dhaqankeenu yahay ayuu had iyo jeer malaha soo bandhigi jiray bal hadda riwaayadda tuducan yara idinku soo maqan wuxuu ina tusayaa bal hadda duufaan ku kacday xagga de gurigiisi iyo islaantiiyo malaha inta la is yaraa oo dabadeeto kalarhka qabsatay oo tiri ifuro marka had iyo jeer bal hadda waxaan jeclahay inaynu bal hadda dadweynaha in yar aynu la wadaagno islaantii oo furayo oo caruur fara badan oo malaha guriga joogtay ay kaga dhex baxday bal hadda in yar aynu daawano dhegayso muxuu ifur baad leedahay ma dayn maysa miyaa haddii aan kugu daydo ama daafac ilaa ragga ceebta u diid dembi sii kordhamayo dux lagaa heli maayo ruuxaan daw ogolayna wanaaggaaguma deeqo nin weynoo maanta duqdiisi dariiq iyo suuqa ku caydo daabgudan loo lulayaana digadu qabsanaayo kuleelkada wuu damqaya ma garatay ubadkaaga haddaadina kori waa iska diidee dembiga aad qurux moodday aakhiro waad ummadaada daayim baa agarsoore dalqadaadina waa ku furay labaa ku furay saddex iyo bar baa ku furay ha xidhnaatadhagaha labadaa dhagoodun iga bax aniga waxaad yeelaysaa carruurta ha ka raagino aqalka ha ku qufuli dabka ay ku dhacayaan ha ku dhaceen hooyo waxaad yeeshaa inanka weyn ka roor caana boolaha uu ku xanuunsadaaye isaga caana xoolaha u soo iibi naa ku qoy iskaga tagay yeelkiisa iskaga tagay oo waxaad yeeshaa inanka faysal wuu hurda xun iyo sariirta ha ku seexan buu ka soo dhacaya isaga dhulka u gogo ha soo dhacma cirkaa ha qabtay iskaga samada ha qabtay eheede aqalka ruuxu dumarahoo kale haddii aan ku arko balaayaa dhici doonta iska jir haddaa mid keenaya hadda carruurtaa iga shaashoobayse wala inaad ku dhixo maanaa keeni karaa naasaas bayna kale meelow hayga tagay daba waa rowaataynu kala tag isaga ifay fur lahaa ilaa waynu isfur waxaad ka yeeshaa carruurta dabaydkeeda leeyahay ha ka raagine biilkooda daaska si dhaqsaa uga soo qaado kan iskuulka tegaayo subaxii u maydho u bedelo iskuulka geeyo haddaba waa yahay nabadgelyo waxba uga soo qaadma maxaa kaa galaada sogama tegin ka tagta iskaga ina kala kaxeetee dee iga tag maxaad iga soo aniga waxaad igu xayraabasa sawbaynaa kala tegi
هاي بحيرامي ليه كلا تقني يسوي كل طريقة هي كلها مع عرورته عريال كود هما هي تعرض حرب على فضايس كده سكمات كده الله يا هاي كل قاعد تعيش كلا يا كوار يمكن بوسري حتى بوسري روايداasi waxa weeyeen maxaan kula been war ruwaad soo been war maxamed aan daar baa lahaa way Djibouti marka lagu dhigay way marka hore Muqdisho ka soo baxday kadib baa loo habay Muqdisho Djibouti lagu dhigay wadiga arkay sida uu matalayo huriya sida hinaasaha guurka sida gudiso sida mujtamac marka damana wadiga arkay markay tagaysay iyadoo ka qalcin reerkeedii inuu burburo si carruurta ula hadlayo sidoo ula hadlayo iyo dardaaranka iyo carruurta ugu dhawrtay markay ku soo cabaadaan waxa iga qabay waxa aad u la yaab leh qofkan jiraagi maaha qofka actorka qofka heesoo kula qofka geeraarka faraha badan intuu xafido sii deynaya bulshada u sheegay waliba geeraarka sidoo inta heesto kala socon karaya waliba ku madaraya matalaad koominimada ay ku jirto ma aragtay bulshada inuu la hadla ay ku jirto inuu waxa uu xambaarsay fikrada xambarsay si ay bulshaduna ugu tabinayaan si ay u gudoomaan ay u fahmaan markuu doono codka kulba bedelaya dadku ay ku qoslayaan waxa qalbigooda ku jira muujinaya maaha wahibo ilaahay qofka oo siiyo wahagaagan Ibrahim aad dad maasan tahay kuleeyda sharax qurux badanna waad ka bixisay ruwaadan inkastoo dadku ruwaadu iyadaaba ismacnaynaysa marka qofku de yani iyo qaabkan wuxuu matalayo ma jiraan inta dal og yahay ama record garaysan ruwaayada kale oo sana kale intuu matalay dadku aad ugu qaranayaan aad yaad wadii wacdu matalo Ismaan adan balaa way maxaan ku raadayay waraf yeeshin baro Ismaan adan balaa uu matalay Ismaan askari way maxaan ku raad wuxuu matalay ruwaayada oo bustaale ruwaayada kale la qaraami qalbiga loo wanaagsan markii dambe soo saaray uu matalay ruwaayada Ismaan Abu Ruwaana la yaabna uu ku jiray oo ka islaanta ay wada hadlayaan ninku intuu inta soo doono tuna waanad garanay waa ka oranaya Aamin Abdullaahi waa ruwaayaduna maartay bulshada tusaysa in hablahan laga soo doonay dadka adidana jireen oo dhaqaalaha haysta ka soo doonaan iyo dhibaatooyinka ka dhaxdhaca wahagaag musiibada ku jira musiibada adduunyada iyada oo macalina sangub ruwaayadii uu sameeyay Soomaa ma Xasan Xaaji Cabdullaahi musiibada Xasan Gani waa maadis wala yeesu ku jira sideen ugu jirin uu ku jira wahagaag uu ku jira wahagaag طبعا ruwaad walbana de ruwaayadii Hargeysa ka soo baxay ilaa 70kii marka la mideeyay fanka way adkeed ruwaayad aanu kaalinta ka qaadan oo ruwaayada inta badan xamar inagii maadaama bulshada xamar ku soo sameeyaan ma inta badan Hargeysa ku ka soo baxa oo ku jira waxa laga yaabaa anigu ilaa 18 ruwaayadood ilaa 20 ruwaayadood inaan garan karo oo waliba fursad u helay oo qaarinta anoo maartay xilli horeynta la sameeyay dib loo soo celiyay ruwaayada Xasan Xaaji Cabdullaahi kale waxa laga yaabaa ruwaayada Afrika ka badan dab jacayl kale laakiin koobistadkii waa soo celiyay saddexdii waa soo celiyay waan daawaday bidaar waan daawaday galbeed waan daawaday inta buu ku jiro dib baa loo soo celiyay ruwaayada Ismaanna dib baa loo soo celiyay waan daawaday kuwa dacar bad jacayl badan abu ku jira oo dacar leeyo aad qiimo badnayd oo ruwaayada waana badan ee fanaaniin badan ka qayb qaateen marxuumku xagga qaybaha kale fanka marka jilida laga yimaado inkastoo hore u sheegtay isagu roolka ama doorka ugu badan oo ku lahaa inuu xagga masraxiyada iyo odaynimo medelka uu ay ahayd ma jiraan inuu qaybaha kale fanka ama suugaanta isku day jiray sidaan ku sheegay horta wax uu tirin jiray laakiin waxa uu tirin jiray ma badnayn oo suugaantiisa xagga taariikhda suugaantiisa ka garan karnaa laakiin waxyaabo ku fiicnaa ba jiray marka ruwaayada la soo saaray ruwaayada habeenka la dhigayo ma dhalatay waa laga soo shaqeeyaa dadka ka soo shaqeeya intani daahad qiiman ka soo shaqeeya designada sameeya mukhrijiinta oo ay aragnimo weyn buu lahaa nin weyn oo odayaa waana waa marka dadka mar walba isku hawla dadka wax la howlgelinay inay fiicnaadaan ee ka soo shaqeeyay ku magacawnada qofkan kale ayuu ahaa marka maxaan ku raadayay waxa kale oo ahaa nin koominimadu ay ku abuuran tahay oo markuu suuqa joogay markan kale ay isugu mid tahay nin ma garanaysa wuxuu ahaa aad iyo aad Allah naxariisto ku qanacsan shaqadan oo hayo ee bulshada oo hayo oo aad ugu kalsoon waxaan ahaa nin dhowrsan oo sharaf badan oo dhaqan fiican ayuu ahaa oo edeb badan oo aad ugu kalsoon oo maxaan ku raadayay shakhsiyadiisu aad u fiicantay hagaagan Ibrahim aad baad u maasan tahay waqtiga wanaagsan iyo sida quruxda badan ee aad sharaxa naga siinayso taariikhda marxuumka waliba de qaybta jilida iyo masraxiyadaha markaynu maadno sidaad sheegtay hal abuurku ama jilaagu inta badan wadciga taagan ayuu haday jeer ay bulshada la wadaagaan oo ay ama jilaan ama curiyaan hada abaaro ayaa inta badan la sheegaa way dhacaan xoolahi waa madha biyo la'aan baa dhacda
inta waxa weeyaan haddana raxmadda ilaahay dee inagama dhamaato mar walbana dee raxmadu way daadaa roob u yimaada haddana waa lagu ooman yahay malaha dee hal abuurada iyo marba in badan dadka ay ka wacyigeliyaan ruwaayad baa jirta uu rool ama door noocaasa uu ku leeyahay uu waana iyo wax sheego dee dadka usoo bandhigeen ruwaayadda baa masiibada adduunyada oo macalina yaa sameeyay xasan xaaji cabdullaahi baa lahaa way ruwaayadaadu qiimada wuxuu ka hadlayaa nolosha bulsho wuxuu ka hadlayaa adduunyada dadku sida soo bilaabeen iyo marxaladii ay soo mareen dhaqankuna kama marnaa in dhaqanka wanaagsan dadka la tuso maxaan ku raadayay ruwaayada kaalinta ku lahaa waxay ahayd inuu dadka u sheego sidaad sheegtay noolaha iyo baahiyaha horyaalla mar walba abwaanadu inta badan kama heli jirin jacayl ruwaayaduna waxyaabo badan oo xagga bulshada xagga nolosha kala ah way ka hadli jireen marka wuxuu ka hadlayaa environment uu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa bulshada kartida si wuxuu qabsato ruwaayada ay doorku ku leeyahay tahay wax soo saarka ayuu ka hadlayaa sidaad sheegtay biyahan inta mar walba daahan aan la qabsanayn iyo wax soo saar la'aanta yani dadku inay maartay karti yeeshaan wax qabsadaan baraarujin bay ahayd bal in yar dadweynahan yar daawasiino Ibrahim wad maasantahay mar kale waxa jirta Soomaalida marka laga hadlayo laba nooc bay dadku u nool yihiin oo mar waxa la yiraahdaa wareer guura oo wax xoolo dhaqato barina waa deegaana waa qodato ruwaayad baa jirta haddii aanan khaldanayn isaga iyo Allah naxariistay isna Maxamed Jaamac Kayd bariya bariska war yaa u dhaaranaysa ana log cidaan u dhaaranaya maxaa adigu waheede waa tiga galiga safuuliya rashma qaadina ku geeya an yaraan ku idhaa laba kelmadood horta xaajigii ku dhalay xini dhaafka ha haashe week artiba ku xadaaya xanaaqa iyo boodkana xulun ba iska lahaa ninkii ka xiska roonaysta waan xagatayo tan xulaan bariidka xidib ina googta sidii xool isku daa xaragada waad necabtay xumaantana waa jecesh reer xagaa maxamed aadal xulaan ka waaynina ka xilanayna xayiro 10 neefa isha soco ahaasan beertan xaalif garowda reerkan aad ku xaraysay adeeg ku xilan yihiin ha kulleen xasiidiya alay xagxagtaay biri aad wada xoodiyo xarkun baad sida tahay kaalay ku xur kala reerka ka reeraha kaalayo qoysiina ka ururno halka yaan ku xooleyno iska kala abaartan iyo dhulkan qodayso inay hawaadka ku dhaafo saarto ka soo kaxay iska kala beesh aan kala hadlaa kaan qiinun baatay waliga waxaan moodeen war inta dhaamay soo wada geedba waaxidkii oo intuu ciid xuruusho reeska soo xansada xarabaad dirideedna xamarba waa urudkii xaajana waa wax aqoon xubinteeda taqaana si xaabo jabooda badowga isku xaabsha hadii xeegadii jaan kula jeeday xuruuno xadkiibaad ku jirtaa xariir ruuxan aqoon haddii aad ku xushmayso xila aad ku tidaaho isna uu xiglay moodo kaana xaal qaban maayo xumaanka ma jeeda waa xiskiisa iyo kaaga xarakaadka adduunka waxaan loo xigsanayay galbeedka geeyay xadkaana xaqiiqdii beeraha weeye xoolahan aad wadataana waa xanaano la'ayeen inta jiifto xareedu ee xirfadaha ku jirtaaba xilli qooqatiina xoorka aad dhamaysaaneen abaar xaabka idlaysiya markay xaaqi timaado xerada cirka weeye inta aanay ku xaaran kaalayo ka xorowo halkan beer yar xagaafo حفلي بحرادات عركة يحدقها لقود قولي حرادي وان حمضوا ساقي الحراش إسعساب قرميني أنا بيرت حقافو أنا نحول عضوط إنك لك حي أنت عركة إنك سجرة ما سجرة كوري إنك لك حي أنت سين سجرة ونصاب قرن ليني قرات يو حجر أوضيبا وحقنا كوب بحنا إنه حستجا جهل قالي جهل قالي حولاتي حول وطا حويان يو هطليا وروح هباس غضيينك لك هذا هي ناس عين ما روات عيدا كدرك إلا كان كنت صبرت هرتي واجا بل هذا labada marxumo beeraha iyo xoolo dhaqatada bal isku yara dabcan waxay ahayd baraarujin xagga beeraha iyo dhaqanka waagaag ugu dambeyntii waxaanu gabagabadii barnaamijkeenu ku sii shaqeynaa Ibrahim aadna waad u maasan tahay waxaad iiga warantaa radio Hargeysa oo taariikh far badan ama fac weyn ku leh af Soomaaliga oo idaacada af Soomaaliga ku hadashay tii ugu horeysay abwaano iyo halaaburo fara badan baa barnaamijyo ku lahaa oo Allah naxariisto huriyo kalaan xasuustaayo barnaamij dalmar loo oran jiray oo soo maray isagu oo ku jiray dacarba ku jiray isgaltiisu ku jiray riwaayada raadiyaha dalmar daabad oo ku jiray qayb ka soo qaatay barnaamijkaasi meesha lagu sameeyay jiray waxaan uu huriyo sameeyay wax jira ma ahayn
وفرس ما جرو ماشي meesha xafiiska isagoo fadhiya halkan ay isagoo fadhiyo ka shaqay ay markaa in maalin baa ruuxi maxad u sameey weeday Allah naxday huri daabad maxad soo saar weedo wuxuu meel aan maryaaba ma jirto markii culayska faraha dadka lagu hayay ma garanaysa arrinta kale cajiibka waxa weeye balka warram nugu baalka waxaan ma jiraan inaan sameeyo maxaa sameyn lahayd buu haddaan idinka hor fadhiya anaa buu beeska Ibrahim ku jiray Ibrahim waa hagaag Allah u naxariisto ugu dambeyntii qoyskiisa ama ifka muxuu kaga tagay Allah u naxariisto wuxuu kaga tagay 3 ciyaal ah inaan iyo 2 hablood oo aaskii inaan u dhaarmas ka soo raacnay oo aan guriga keenay waan ka qayb galay aaskiisa inaan ka 2 hablood ka tagay Allah u naxariisto Ismaaciil Cabdi waxaan reer magaalada reer miyiga noloshiisa miyiga kuma soo wada guurin oo ku xirnaa markii la qaxay isteedkii soo halkaas iska tagay sidii maxay soo iyo xoolo iska sameeyeen markaa isugu halkaas iska digana halkaas dalka ka soo galay markii lagu soo noqday barigii daba qaaxay meel loo yaacayna idigu muhiim waxa jirtay meel ka kor ku taalo social affairs kala jiro fanaaniintii aboonintu la joogeen soo kama mid noqon qoradii timi laakiin intii badneeda kala joogtay waa hagaag aad iyo aad badmaasantay Ibrahim Ali Ahmed Ibrahim Ali Cuule waa aqoon-yahan ku xeel dheer xagga ururinta taariikhda dhaqanka fanka iyo suugaanta dad fara badan iyo suugaan fara badan waqtigiisa uu huray si uu kaydiyo aad baan uga mahadcelinayaa waqtiga wanaagsan ee uu ina siiyay taariikhdan barnaamijkan oo aanu ku milicsanaynay si kooban Allah u naxariistay taariikh nololeedkii faneed ee dhaqan ee dhinacyo fara badan Allah u naxariisto marxuum Ismaaciil Cabdi Guure oo basbaas loo yaqaanay ku geeriyooday magaalada Hargeysa laguna aasay ayaanu Ibrahim Ali Cuule uu nala wadaagay barnaamijkaasi aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa waqtigiisa wanaagsan sidoo kale waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa hawlkarada ama sida wanaagsan ee ay barnaamijkan idinku soo tabiyeen farsamayaqaanada ku hawlanaa barnaamijkan Jimcaale Ali Ibrahim Maxamed Salaaman Gaabna iyo Maxamed Caqli Haddi Sidiq Ismaaciil iyo Maxamed Cabdi Ali oo Maxamed Deeq loo yaqaano iyo aniga oo Xamsa Suudi Nuura dhamaantiin waxa aanu idinku dhaafaynaa intaynu dib hawada ugu kulmi doono barnaamijyo kale assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh